dhaqanka Soomaalida waayadii hore iyo imikaba shan xaalo ayaa laga ducaysan jiray colaad aan laga heshiin cayd aan laga dhaqan cadho aan laga soo noqon cudur aan laga bogsoon iyo cilmi aan nacfi lahayn shanta xaalo dadkii hore way ka ducaysan jireen waxa kale yiraahdeen laba shay bilowgooda la yaqaana laakiin meel ay ku dhamaadaan lama yaqaan cudurka iyo colaada bilowgooda la yaqaan laakiin meel ay ku dhamaanayaan cid taqaana ma jirto ilaahay baa og dadkii hore cudurradu laba nooc bay ahaayeen cudur mid ay yaqaaniin oo dawadiisana yaqaaniin buuxa cudurna mid cusub oo markaa ku soo kordhay ayuu ahaa waa siyaabaha ugu mahmaaheen wixii la arki jirayna waxooda lagu akhriyaa wixii aan la arki jirinna min subhanallah ya leeyada cudurku wuxuu kaloo kamid ahaa saddexda masiibo ee waaweyn abaarta iyo colaada iyo cudurka siyaabaha dawooyinka u isticmaali jireen waxa kamid ahaa saddex shay ayaa ugu mudnaa dadkii hore dawada isticmaali jireen xiliyadii hore kiniina ma jirin irbadana ma jirin waxa jiray saddex hab oo loo mari jiray dawada ta koobaad ee ugu mudan ee uguna badnayd waxay ahayd dhirta ta labaadna waxay ahayd dabka oo ku yiri dab iyo xanuun meel ma wada galaan ta saddexaadna waxay ahayd xoolaha oo loo qalo marka dawo iyagana laga dayi jiray sida barida idahoo kale iyo waxyaabo la mid ah waxa jiray waxyaabo sixir iyo fal marmarka qaar sameyn jiray oo inta hilib wax ku qabtaan qof kale xanuun qof iyo qof kale u guurin jiray oo kuwaas iyagu kuwo qariman bay ahaayeen oo si khaldan wax u daweeya waxaan uga socdaa maanta caalamka waxa ka jira xanuun cusub oo ku soo kordhay Soomaalida hore uu soo marayo imika magacan waxaynu qaadanay in ajaanibkii waxa la oran jiray hoomay dabadna waa la isku habaari jiray waxa la oran jiray hoomay iyo haqla ku dil laakiin mar la arag ayuu ahaa xanuunkaasi mar buu hoos u dhacay wuu soo laba kaclay baaqaygan maanta waxaan ayidaya oo xoojinaya wasaaradda caafimaadka oo ina maanta baaq soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland xanuunkii meel aad u halisa ayuu marayaa dadkina waxaad moodaa in mooganaani ay jirto ama sahashi iyo fudaydsi uu jiro ee wasaaraddu waxay tiri saddexdii bilood ee sanadkii dhamaaday iyo saddexda bilood ee sanadkan imika aynu ku jiro marka la isbarbar dhigo yaani laba jeer ama laba jibaar ayuu noqonayaa sanadkii hore waxay yiraahdeen saddexdii bilood ee u dambeeyay waxa la baaray 11,000 iyo jarjar qof waxa laga helay 300 sanadkan oo bishii saddexaad aynu ku jiray maanta 22 tahay waxa la baaray 13,000 iyo 334 950 qof baa laga helay bay yiraahdeen halkaas waa laba jibaar waxaan oran lahaa dadku wacyigelinta caafimaadka talooyinka caafimaadka ha qaatee oo madaxadayga aan iska dayin laba xukuumadda waxaan oran lahaa siyaasadan iyo doorashooyinkan iyo xisbiyadan iyo xafladahan la isugu imanayo waxa ka qabato qurba joogtii malaa UK iyo meelo badan waaba joojiyeen diyaaradihii iyo soo socodkii laakiin xukuumaddu waa inay xil isa saarto dadkuna waa inay ku baraarugaan afxirka bahalahan gacmaha la gashanayo inay kala fogaadaan salaanta oo waliba inoogu daran gacmaha la isla soo doonanayo in halka la iska salaamo sida la ina farayo talooyinka la inoo soo jeedinayo ee wasaaraddu inoo soo jeedinaysa caafimaadku iyo meelaha kaleba ee dadka aqoonta u lehiba inaynu qaadano ayaan aad u soo jeedinayaa aniga cidina ima maalgelin cidina ima dirin aniga damiirkayga iyo ra'yigayga isku diray oo isiri halka kelmad inaad ka tiraahdaa أجر رواد كهليسة
ummadaadana danbay u tahay anigana danbay ii tahay intaasan caawa soo jeedin lahaa qolada hoonkay ballaa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi